ninkani waayahan badadaal adag iyo socod iyo hawlo waday Muuse Bixi buu tagay wuxuu ka soo qaatay waxa la wixii maxaan ku dhaxayay kharashaad ahaay uu ku dagaalgali lahaa Somaliland weeyaan buu ummadu dalkuna waa Somaliland sidii Ingiriisku sheegayna wadankana waan qabanayaa hube dhaqaale iyo wixiba ana waxaan wada kala furfuraya waxa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا wadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xogaran waxaan idinka haynaa ama qodob kan aan idinku eegi doonaa magaalada Laascaanood iyo dabcan gobolka Sool magaalada Laascaanood hadii aan ka horeyno xaaladeedu waa ay degan tahay dhawaanahan wax dagaalina kama dhicin ciidamaduna waxay yihiin kuwo goobahooda ku kala sugan balse laakiin war weyn ayaa ka soo dhacay gobolka Sool kaasoo la xiriira in maayir ku xigeenkii degmada Xudin in lagu magacaabo Cabdinaasir Cabdiqaadir oo halka ka goostay isla markaana uu galay ama uu tagay jamaahiirta iyo qolyaha xaqoodirka ee gobolka ka dagaalamaya Cabdinaasir ayaa dabcan la soo warinaya in uu la goostay gaari iyo isla markaana waxyaabo badan maadaama mas'uul uu ahaa iyo xogo badan baa la filayaa dabcan inuu la goosto isla markaana uu khibrad ku biirin doono ciidamada xoreynta gobolada SSC ee dabcan ka dagaalamaya goboladaas iyo magaalada Laascaanood Cabdiraxmaan Afagaadho barnaamijka aanu wada falanqeyna ayaa garabkayga fadhiya isla markaana xaaladaasi dhow ula socday inoo falanqeynaya waxyaabaha ku kalifay in xubinka sare ka tirsanaa maamulka wabaha maayirkii degmada Xudin uu ka tago Somaliland oo isla markaana uu ku beero dadkiisa iyo dagaalka xaqa Cabdiraxmaan soo dhawo bal maxaa kalifay baa la leeyahay bismillah muxidin aad baan ku salaamay adiga iyo daawadayaasha Ramadan Mubarak dhamaantiin meel kasta oo ummadda Soomaaliyeed joogtaan waxaana hadda waliba aan sii galeynaa dabayaaqadii Ramadan oo maalmihii ugu barakada badnaa haato tobankii dhaxa gabagaba ilaahay inuu amaashana inaga aqbalo kumanka la xoreynayna inaga dhigo ummad kasta oo dulmi ku jirtana ilaahay dulmiga ka dul qaado intaasna dadkayna daawanaya aamiin tahay nagu caawiyaan inta ka bacdi Laascaanood iyo xogaheeda waxa weeyaan yaan galeynaa maanta Somaliland war baa ka soo yeedhay war saxaafadeed bay qabteen shirar bay qabteen iyagana waan galeynaa dagaalkii Laascaanood muddo in natiijadii lagu kala adkaan lahaa iyadana ay u beertayna waan galeynaa Cabdinaasir Cabdiqaadir waa maayar ku xigeenka degmada Xudun waa degmo muhiim ah oo kamid ah degmooyinka ay jamaahiirtu haysato sida Bohol iyo Xudun iyo degmooyinkaas ay la mid tahay Tukaraqiyo waa degmooyin la isu dagaalamo kala Puntland kala maxay kala Somaliland wareeg jiray laakiin hadda meel istiraatiiji ah ku taal degmo qadiimi ah maayarkan cod badan buu ku soo baxay nin mas'uul oo la doortay nin la magacaabay dabaka tuur ah ma ahayn ninkani waayahan badadaal adag iyo socod iyo hawlo waday Muuse Bixi buu tagay wuxuu ka soo qaatay waxa la wixii maxaan ku dhaxayay kharashaad ahaay uu ku dagaalgali lahaa Somaliland weeyaan buu ummadu dalkuna waa Somaliland sidii Ingiriisku sheegayna wadankana waan qabanayaa hube dhaqaale iyo wixiba ana waxaan wada kala furfuraya waxa wixii loo heli karayna waa loo dhiibay kadib markii sida loo maalgeliyay ee loo diray gaari cusub oo kuwiisi horaan ahayn oo dhiidiga iyo dhiiqada iyo wax toona karin yaa loo dhiibay Cabdi Bila bacdiya staafkiisi iyo wixiisi iyo hubkiisina isagana lagu daray waa loo diyaariyay wuxuu tagay qudhiga Goojacad tira kala habeen in cambaashay bartaa iyo ku wada shirayeen istiraatiijiyada sida loo dagaalamayo hubka la haysto ciidanka la haysto wixii oo dhan baa xogti yaa loo dhiibay yaa faraha laga galiyay wuu ka wareegay wuxuu ku noqday xaqii iyo Muuse Bixi xogtii iyo wixii oo dhan buu la wadaagay Muuse Bixi iyo madaxtooyadii iyo taliskii sare ciidanku xogta hayaan wuu soo helay kabto ayar mahad cambaashay kaga soo noqon lahaa umbu Xudun isu tuuray uu jamaahiirtii isu dhiibay waa tahay dhabar jab ka weyn ma jiro waa tahay nin xogtaadii haya boqol nin waa laga dili karaa wadna si dagaalami kartaa laakiin xogtu waa hal nin oo xogtaada haya haday ka baxo waxa weeye fashilkii dhabar jabka ugu weyn dagaalka waa tahay ninkii wuxuu soo gabagabeyn karaa
dagaalka iyo gooja cadena sii fadhiyaan inta wiil fadhida gooja cade inta hubay fadhida sida yihiin saadka inta distii haystaan ninka wax kariya inta sii dagaalami karaan nugeylkooda inta jida laga xiri karo qaabka loola dagaalami karo xoogtii oo dhanba uu hayaa waa tahay waxa la socotaa ciidanku markuu jabo waa markii ciidankaas dad xoogtiisa ay baxaan waa tahay oo cadowga ciidankaas isaga ah waa sirdoonkan leenahay markaa sirdoonka weey ninkan marka isagoo xogtii haya dhabar jabin weyn iyo ku sameeyay ninkaasi maanta dabaaldeg baa lagu soo dhaweeyay meel kasta jamaahiirtu joogaana loo kacay aad iyo aad baa loogu kacay waa tahay talaabo geesinimo leh yuu sameeyay waa tahay waxa la isweydiinayaa inuu inay cambaasho ku xigi doono iyo inay cambaasho horey bay u kala dhinteen nimankan washarteenka la yiraahdo waan gartay laba wiil oo walaalo yihiin kii kalena muxuu ahaa kormo koore isagu ma wajhi ma dhigan ma isagu wada hadal ma jiray ma in cambaashe waxa la sheegayaa laba wiil oo walaalo yihiin in boosaas lagu dilay in cambaashe ha colaadiis way horeysay baa la leeyahay siday dad dawadayaasha nagu xidhan qaar kamid ah oo xogta haya ay nala wadaageen xog noocaas ay nala wadaageen nin argoosanaya oo horay u waxaysmay yani waxyaabaha in sheegayaan waxa kamid ah dhulbahanta horay ugu hiilin waayay mahad cambaashe waxaa dilay ma jarteen baa walaaladii ku hor jeexjeexay maxay wax noocaas waa xogtaas hal dhan ah oo run iyo been waxay tahay nin aar gudanaya laga dhigay laakiin xogtan xataa meeshan ka helay waa dad waxay nala soo ila wareed hal dhan ah bay nala soo wadaagay ma xaqiijin karo يعني سيدا أي لهين وحي أصاب بيني أن ما هالعب عشان يصاب سيدا قالمو وحيابا كوكلفة يا جري ليه لكن واحد كستوى كوكلفة يا تذكاجيو إسرائيل وديان كاجيو إسرائيل إنها تبردون ملك الوسيات ما يلنا يسوع سبب أي هذا عين لنا سبب تاس إلى ذا ما يجرتو أنت أمرك اللي جاي ما دنيك مصبيحة السياسة دي حزبية دي ما السياسة دي يشير لك على عن شرعية سنين ويسوي عليه السياسة دي إني يعني ده أي ترتمان والله أنسحيو حزب لقى دقوا كان أو كي كلو أي دور الشدق وديار جروبان أو محيو لا كلا عدي وقرش كلا كلا حلقوه آخرية قولي دجال كلا جاري تقولها مدتك الشعب كحسوق ده والشعب كحسوق دي بقى هالكنا كبودني إنه هبل بنتلي وحوا قبيلة موقت إنه هبل كيشنا كابنتلي قاري ريه هبل بنساق حلبان كهبل بنساق وانا قاري ريه هبل النوع عصاي قريق النوع عصار رابع قبرنا حقنا كان كسمينا كي تابدر كده ما ينورن إننا أنت حصل إنه جاي وهالك حصل إنه قبت هالك حصل إنه قبت هالك حصل إنه يسوق أي حاجة بنك خذين بي وبوايد ده بربوغاندا دي وورحل ده أنا بوشة السياسيين يجون وحسوا دويين ويقرب استعجين بالليل دولان كعيدة ماذا قرب كسيدة الجمهورية السومالية وسائل هذا الكوردجان كواسي واحد معنا هذا اللي قرب استعجيان ويوحوا تريو كرن معيو انت عشان دقاس باك سويا ده موسى iyo axzaabtii siyaasadda iyo sharciyadii ka wada dhaceen iyo xukuumadii oo sharciga ka dhacay iyo urur siyaasadeed iyagana sharciga waqtiga ka gaadhay waxbaas ay soo dul hogeen laasacaan oo kabtan iyaduna afka ku soo kala haysa tala ku cadaatay waxa la wuxuu sameyn doono Allahu a'lam waka waa tahay hadii aynu halkan u soo laabano xisbiyadan ama ururadan Muuse la galay dabcan waqtiga doorashada Soomaaliland waa dhaaftay beesha caalamkuna doorashaha la qabtay lahayn xisbiyada imika ka hadlay xaaladda laascaanood in hore uga hadal iyaga laftoodu ma olole doorasho ba miyeen u muuqanay qoraalada Soomaaliland urur siyaasadeed wixii dhul baahanta ahana jamaahiirtu taageeray way ka tageen waxa la toosiyay ku gudoomiyaha ka ah ee shacabka Soomaaliland la dhahay yaa kamid aha oo wala kala diray kuwii reesha xisaq lahaayeen way ku qasban yihiin inay taageeraan oo de jid kale u furan ma jiro marka taana de waa siyaasadda guud ee iska qabiilaysan meesha ka jirta aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa Cabdiraxmaan Afagaadha oo dabcan barnaamijka aala ila falanqeeya isla markaana ila qaada dhigay xaaladda laascaanood iyo dabcan warsaxaafadda soo saartay Soomaaliland oo ay ku faantay inay guula ku gaadhay dadka shacabka ay xasuuqaysa isla markaana ay guryahooda ku duqeynayso kaas ayaa moodaa in Soomaaliland saqiir iyo kabiir ba isku raacsan yihiin duulaanka lagu wada dadka maatida ah ee Reesol iyo gabi ahaanba gobolada SSC
sidoo kale waxaanu qodobkan ku eegeynay oonu kaga faalloonaynay maayir ku-xigeenkii degmada Xudun oo ka goostay Somaliland islamarkaana ku biiray dagaalka xaqa ah iyo ciidamada SSC xaqudirka. intaan barnaamijka xiga ku kulmi doono aniguna waxaan ahay Muxiidiin Xarago waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.